manka masaakiinta marka this is a focus waxa loo baahan yahay dhalinyaradu waa burbursan tahay ma loo baahna marka in xisbiye laga bilaabo waxa loo baahan horta marka hore in la soo keenay oo iyagu ay ma taqaanaa ay ka digteed galeen from there Abdullahi hal su'aal baan rabaa ku weydiiyo waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ma yihiin nationalism oo ma aaminsan yihiin wax la yiraahdo wadaniyad mase waxay aaminsan yihiin hab qabiil in wax lagu dhamaysto ama ay kula dhilgareeyaan dhalinyaradooda kale ee Soomaalida ah marka laga soo tago habka reer magaalnimada ama isku xaafadaha la ahaado ama isku magaalaha laga imaado macnaha dhalinyarada hadda Masar ka kacday waxay aaminsanayaan wax la yiraahdo Masar waa hal laba Masar ma jirin ama Christian ahaado ama Muslim ahaado heerkee bay ka taagan tahay Soomaalidu nationalism ka wax la yiraahdo wadaniyada very good way answer ka rasmiga waxa weeye of course Soomaalidu nationalism ku ku yariya oo waxa uga horeeyay qabiilka nationalism oo iyagu principle kooda waa qabiil laakiin qof kasta oo Soomaaliya maskaxdiisa waa ku jirta waana fahmayaan this time after 20 some years in ay important tahay in Soomaalidu ay Soomaaliya uga fikiraan Soomaaliya oo qabiilku san macna lahayn Abdullahi ma santahay Abdullahi Bishaar baan wareegay Abdullahi Bishaarow aqoontaada maxaa u maraynaysaa inay dhalisay in Soomaalidu ay qabiilka u aaminsanaadaan sidii wax iyaga qalbigooda uu ku soo degayo kale maxaa kalifay waa su'aal fiican horta arintaas waxa kalifahay waxa weeye Soomaalidu beeskeedii hore waxa dad reer guuraa oo reemiye ah qabiil bay ku bees gareysnaayeen marka aqoonta Soomaaliyana markii la fiiriyay 60 markii laga soo bilaabay intii hata 1969 ilaa iyo 90 waa la dhihi karaa iyo wax la bartay intii ka horeysana aqoontu dhaxtaal bay ahayd aqoonta yar iyo miigi oo fara badna nin walba hadda marka la fiiriyo aabihi ama awowgi generation kasta hadda markaad fiiriso wuxuu dhahay ana aabahay baadiyo ka yimid kala aabahay awowgi baa ka yimid bulay kan ugu liito lama helayo way yar tahay baan u malayn numberka ah in nin awowgiina doctor yahay aabihiina doctor yahay isagana doctor hadda ah aad buu limit ka u yaryahay qabiilku dhibka noo keenay waxa weeye qabiilka in la qariyo oo la aasa sababteeda yaaba ugu weyn wax dhibaatada keenay Soomaalidana waxa jeceshahay waxa la yiraahdo waxa loo diido wixii laga celceliyo Soomaalidu waxa weeye arintaasi mucaaradnimadeeda aad u xoogeysato marka qabiilku soo Abdullahi u sheegay weeyo Soomaalidu wax ku abuuran laakiin de in laftiisa laga wada hadlo oo lagu hadlo hataa oo anigu mar Kenya aan joogay aan wagan soo baxay qaxootiga waxaan la yaabay in Northeastern Kenya dadkii leen qabiil buu taagan yahay qabiil waa wax lagu kala dooranayaa waa zone weeyaa la leeyahay saati haddana de wax dhibaato ah kama jirtiin qabiilkii la sheego way barteen way adabti gareeyeen okay Abdullahi run ahaantiina markii hadda la fiiriyo waa dhawada ciyaaraha ka dhacay Puntland aad wanaagsan muxuu ahaa dadkii qaban qaabiyeen aad bay u mahadsanayeen waxaad u malaysaa shucuurta halkaasi ka soo bixisay sportiga markaad fiiriso inay dadkii ku hadaaqi jiray hata marka hore waxyaalo kale inaad arkaysaa qof isagu marka hore Kismaayaan u doodi jirin reer Kismaayo teamkana aanan dhihi jirin oo maalintii dambe leeyahay arkaysaa anigu reer Kismaayana maanta meel hebel ka badan marka uu edit kala meel kale u sheeganay arrimihii marka hadii qaabkan loo wado oo hadda shir laftiisa qaabkan loo wado Soo Abdullahi sheegay lagula tartamo hadda dadkan ayagu sadka isa siiyay odayaasha waxaan u maleeyay inay u baahan yihiin in ayagu hadda ay beeshin qaataan meesha ku cibaadeysan lahayn loo diyaariyo doorkaana waxa iska la dhalinyarada I think dhalinyarada u maleysaa in ay shaqaale u yihiin weli still dad kale u shaqeynaya hadda waxa shabaabka isticmaalahay waa dhalinyaro waxa dawladda isticmaalayso waa dhalinyaro kuwii ka hor waxay isticmaalayaan waa dhalinyaro laakiin dhalinyarada Ilaahay haysto ayaga arkaan doorkoodu haddii arkaan doorkooda arintu way fududaanaysaa waan jeclahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Abdullahi Bishaar haatan waxaan u gudbayaa Abdullahi Ciise waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo su'aashaas waxay tahay Soomaaliya maxaa la isku hayaa ma dalba ma diinba ma dawladnimo saddexda qodob haddii mid kamid uu jiro cid maanta awood u leh inay wax ka bedesho ama wax ku kordhiso ama wax u dhinto ma jirtaa saddexda qodob ay weydiiso waxa hadda Soomaaliya caawl isku hayo ma jiraan Soomaaliya diin la isku hayo wax caawl isku hayo Soomaaliya qarankiiba burburay sidoo qaranka lagu soo celin lahay ayaa dhibaato ah marka ma dawladnimo la isku hayaa maxaa la isku hayaa wax la isku hayo dawladnimo la isku hayo diin la isku hayo wax la isku hayo male
waxaa la isku aqoon yar aqoonta waddanka dadka aqoonta ku yar waagii hore soomaalida xornimada waxaan qaadanay 1960kii dadkii aqoonta lahayn dibadda ku nool yihiin soomaaliya gudaheeda hadda dib u jaleecdo xamar iyo agaarkiisii ilaa iyo gobolada dhex waxaa jooga dadkii yarraay cunug yaroo adiga 85 ka dhashay ayaa ugu weyn 85 81 82 dadka ugu weyn marka aqoontii ayaa aad ugu yar soomaaliya marka waxaa la isku hayo male cabdullahi ciise waad mahadsantahay timir beesha caalamku qayb intee in leeg ayay ku leedahay aafada soomaaliya ka socota والله ما لا سوق وبكرة لحظنكي إلى هذا بيش عالمكم سومالي دبي كله هذا أرين أداي لو عبد الله كشان قرينا واه قبيلك سوماليا يعني أنا أقول مقبه سومالي إني قبيل سكوتليس لكن ولا قلي والله مد بالوجش قميسي يو دولتي قدام بيس دولتي قدام بيس من الترقية دبعت وين بي كلام وين بي كله هاد لبك هذا يجري مركي حقيقة لا وحافي عن hal lidri qaybi wahe maya dadku waxaa fiican markii laga hadlayo taariikhda Soomaaliya xaqiiqda la sheegaa wanaagsan Cabdullaahi waa runtii su'aal laga jawaabi karo maan Soomaaliya maxay isku haystaa waa laga jawaabi karaa waxa weeye waa cadaalad darro Soomaaliya waxa hoos u dhigay waa cadaalad darro up to now wax kale isku dadku waa isku diin waa isku dhaqan laakiin waa cadaalad darro tusaale waxa ku ah haddii caalamku uu rabo inuu dawlad u dhiso cadaalad maaha haddii madaxweyne la magacaabo cadaalad maaha marka waxaa basic ku ah marka cadaalad daro dhalinta marka Cabdullaahi waa ku raacsana dhalintu waa in dadkeena aqoonta leh dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay horta fariisataa okay waa in la injection waa inuu jiraa wax la isku daro oo hal mida dhalinyarada qabiil ku jira ka war may waa laga saari karaa waa la geli qabiilkan qaabkeen looga saari karaa waxaa looga saari karaa in la wada hadlo loo sheego qabiilka la taabsiyo because 20 years la jooga in la yiraahdo waxaan qabiilku waa soo aragnay dalkii anaga Soomaaliyiin how can dalkeen soo dhisa karaa we can do that one wala subi karaa very simple and dhalinyaradu hadda inteena meesha joogta wax baan isku raaci karnaa waa la tabin karaa dadkaan ugu soo darsamaya marka waa in marka hore waa in dhalintii Soomaaliyeed laga helaa in la isu sheego runta haddii laakiin la salaaxo oo wixii la salaaxo maxamed timir waa maasan tahay haatan waxaa noo soo dhacay khadka taleefanka ayaan qaadanaynaa ku soo dhow barnaamijka walaal halo 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 waa ku maqlayna walaal lama maqlayo waa masjidka horta nimankiina aan isku soo qaban qaaday maanta shirkaan maaragtay amaan TV maaragtay arrimaha Soomaaliya ka hadlaysaan waad maasantahay walaal sabab u ah dagaalada Soomaaliya ka socda maanta Soomaa waxa la isku hayo fikradeyda dadka Soomaalida oo diinta ka tagay diin la'aan baa meesha jirta marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed diinta ha bartaan diinta ha lagu dhaqo waa maasanteed adaa mudan walaal Cabdullaahi waa mahadsan tahay ninka odayga magaciisa nooma sheegin laakiin waa runtaa weeye diin la'aan iyo anigu waxaan kala garan lahay diintii oo badatay inay tahay laakiin kulley waxbaa la isku haystaa ku saabsan moor diintii wax laga khalday annagu dad marka hore diin leh baan ahayn diinteennu waa naqaanay waxaad u malaysaa diintii in mataqaanaa ay iyada sida mataqaana qaranka u burbura iyaduna u burburtay marka waa runtaa weeye waa diinta ilaahay nagu soo celiyo waa ducaysanaynaa arrinta aan raba laakiin inaan ka hadlo waxa weeye war sidee loo midayn karaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed loo tusi karaa inaysan iyagu tool u noqonin civil warka ay noqdaan product sida adduunka dhalinyaradiisu yeelayaan anu personal waxaan aaminsanahay waa very simple and easy waxa weeye waxaan haysanaa 21st century media wax leedahay wiilka boosaaso jooga iyo gabadha joogta Kismaayo iyo Kambulaha way jooga every day wada hadlaan ama ku wada hadlaan internet ama ku wada hadlaan Facebook ama ku wada hadlaan haddaan wax positive ka shaqeyno very marka hore negative baan ka shaqeynayna fur idaacadaha Soomaaliya qabiil buu samaystay qabiil 25 years enough way hadda qof walba ku qanacsan yahay Starbucks ka hadda tagtaa meelaha Soomaalidu fadhiga ku dirto hadda tagtid you understand toonku inuu ka bedelan yahay toonka 10 sano hore maxay yeelay nin walba practical buu arkay inuu san shaqeynan qabiil marka naa waxa loo baahan yahay leadership new generation of leadership loo baahan leadership kun wuxuu ka dhashaa dad saan oo kale taa oo fahma in wax laga bedelo wixii hore
cabdullaahi waxaan qaadanaynaa khadka telefoonka raalli naga ahow kusoo dhawo barnaamijka walaal halo السلام عليكم calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantaha walaal magacaaga marka hore iyo su-aashaada ومعن مقعي waxaa la yiraahdaa Amina Naaleeye kusoo dhawaa barnaamijka aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay barnaamijka caynkaas oo kale markaa soo deysaan waayo waa arrin muhiim ah in laga wada hadlo ay tahay qof waliba waana Soomaaliya nabadeedna waa la jecel yahay haddana run ahaantii meel lagaga bilaabo qof waliba uu garan lahay sida uu yiri wiilkii hore ee hadlaayay ee TV-ga ka shaqeeya agtaada fadhiya intii naas oo kale isu tagta oo in kalena ma aragtay la wacyi geliyo ama rag ba ha noqdaan ama dumar ha ahaadaan aad bay noogu fiican tahay inay dhalinyarada Soomaaliyeed balse Soomaaliya wanaag dambe loogu celiyo si rajal aan hadda inoo muuqata waayo in door meeshan fiirnaba qofka maanta dhintay ama bad ha ku dhintay ama bir ha ku dhintay ama la kala xiday ama ka dhibaataysan intuba waa Soomaali markaan Soomaaliyan wada hadalana wax xumaato ina dhex yaala ma aragno marka dadka dhan walaalo taladii jihadu way ka wanaagsan tahay aad waxaan idinku faraxsanahay in dadkiina soo kale ay joogaan maanta oo nool yihiin insha Allah inta kalena ay nagu wada dayato oo dad wanaagsan laga dhexelo balna la isu tago bal wax ay geliyo oo rag ah inta idin ka soo dhex baxaan aynu helo maanta dad ku dhiiriya dhalinyaradu in qabiilka iyo qabyaaladuna ay kala laba yihiin qabiilka Ilaahay baa sheegay qof walba inuu qabiil ku tirsan yahay laakiin qabyaalada tan sida u fahmeen inay different tahay oo ay la muuqata marka anigu aan su'aashii hadalka sii badinaynin aad waa u mahadsantihiin khayrna Ilaahay haydin siiyo dad wanaagsan oo sidiinaas oo kale oo Soomaaliya wacyigelinteeda iyo wanaageeda jecel rag iyo dumar bay Ilaahay naga dhigo aad iyo aadna aamin aamin aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbinayaa haatan Cabdullaahi Bishaar ka waran gabadha waxaan kaloo kugu dari lahaa kaalin intee la eg bay dumarku leeyihiin horta dumarku kaalinta horta aamin aad baad u mahadsan tahay tala fiicanna waadna siisay guud ahaan tala guudna waad bixisay oo dee aad u wanaagsan sideedana waxaa weeye anigoo u noqon doono tan dumarka kaalinta ay ku yeelan doonaan waxaa weeye waxaa wanaagsan mar walbaba Soomaalidu nationalismka qofka hadalka fiican ee ku hadla ama nationalka fiican mar walba dadka waa jeclaada gabayada fiiri qofka magaca bixi waa qofka fiican ee mar walba nationalismka ka gabiyo qofka hadalada fiican wadaadada hatta wadaadka hadalka fiican iyo wadaadka hadalka qaloocinaya wadaadka hadalka fiican baa laga jecel yahay mar walbana waxaa wanaagsan in dadka wanaagsan horta la aruuriyo waxaan dhihi karaa dhalinyarada haddii la aruuriyo dad fiican oo wanaagsan oo lagu xulo muxuu ahaa hufnaan iyo karti iyo hadal wanaagsan iyo inuu wadanayo waxay naga raalahow khad telefoon baa noo soo dhacay adiga su-aashaada oo soo noqon doonaa halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhow walaa barnaamijka su-aashaadana soo gudbiya magacaaga aniga nuur baa la yidhaahdaa soo dhow nuur marka waan isalaamayaa waa arrin wanaagsan waxaad wadaan aniga nin Soomaaliyeed oo kasoo jeedo gobolka waqooyi bari Kenya baan waa garan marka wadanka Soomaaliya burbursan ee dadka isgujiismeeda aan nahay kasoo jeedaan markaan arko burburkiisa iyo marka dhibaatadiisa way taabanaysaa inkastoo dad hadda iga jooga meesha aniga weligay Soomaaliya ma tagin laakiin maarta waan dareemayaa dhibaatada haysato marka horta maartay إلا ما ركتي ليس عافيو روحنا أو صبره وما ركتي وحي كسو جارينك ولا الكيا أما ولا سود الدجي ما ركتي ليسكو صبره حدنا ما ركتي لقت اللعبة هذا ماشى waad mahadsantahay walaale nuur aad iyo aad baan maaragtay kugu mahad celinaynaa cabdullaahi ciise horta waa salaamayahay ninkan soo wacay wiil reer Kenya way wiil Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku wada noosha qaar Kenya ku dhasheen qaar America ku dhasheen qaar meel kasta ku dhasheen marka anaga wada wareersan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan Ilaahay ugu rajaynaynaa maartay caafimaad iyo khayr iyo inuu Ilaahay qalbigooda isku soo celiyo marka waxaan gudbinayaa timir cabdullaahi mahadsantahay nuur aad iyo aad u mahadsan yahay iyo maamadii ka horreysay aad iyo aad u mahadsantahay runtii si aan ku soo cesho waxa weeye muhiimaddu barnaamijka waa barnaamij fiican waxaa anigu qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed sida cabdullaahi uu sheegay haddii qof walba markuu gurigiisa tago haddii dood dheer la galo oo ay connection uu noqdo la wada xiriiro la wada hadlo waxaa meesha ka baxaya cudurkii ahaa in ninkii dhalinyarada ahaa laga dhaadhiciyo ahaa mataqaana Soomaaliya way burburtay